Assalaamu calaykum jaalle. Ma isweydiisay marar badan waxay tahay xirfadda video editing-ka. Muuqaalkan ayaa kaga hadli doonaa waxa uu yahay video editing-ka, qaabka muuqaalka loo edit gareeyo, software-da ugu caansan ee wax lagu edit gareeyo, iyo shaqooyinka uu qaban karo qofka yaqaana xirfadda video editing-ka. Ku soo dhawaada muuqaalkeena, haddaana u cusub tahay nagu soo biir, like-na saar muuqaalka. Waa maxay video editing? Video editing waa hagaajinta iyo sugeynta muuqaallo, sawiro iyo codad kala duwan. Aadna ka soo saartid muuqaal dhammaystiran oo mawduuc gooniya ku saabsan, sida kan hadda aad daawanaysid oo kale. Video editing-ka waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee lagu baahi badan yahay waqti xaadirkan. Ganacsiyada, warbaahinta, goobaha waxbarashada, shirkadaha, youtuberada waaweyn iyo cid walba oo baahaysa muuqaal waxay u baahan yihiin cid taqaana xirfadda video editing-ka ula hagaajisa muuqaalada. Sidee loo edit gareeyaa muuqaal? Marka aad muuqaal edit gareynaysid, taabada koowaad aad qaadayso waxa weeye inaad soo diyaarsato dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay inaad u adeegsato muuqaalka aad hagaajinaysid, sida codadka, videoska, sawirada iyo dhammaan noocyada kala duwan ee asset-ka. Tallaabada labaad waa inaad isku aadisaa kana saartaa khaladaadkii kaa dhacay iyo inta aadan u baahnayn. Tallaabada xigta waa inaad adeegsataa waxyaabaha muuqaalka ka dhigaya mid qurux badan, soo jiidashana leh. Maxay khasab u tahay inaad taqaano xirfadda video editing-ka? Waqtigan aan joognay ee casriga digitalka, video editing-ka waa mid ka mid ah xirfadaha loogu baahi badan yahay guud ahaan caalamka. Ma og tahay in halkii maalin in ka badan 100 milyan oo video la soo geliyo baraha kala duwan ee social media-ha? Taasina waa daliil cad oo ku tusinaysa muhiimadda iyo baahida weyn ee loo qabo muuqaal samaynta iyo hagaajinta muuqaalada. Video editing-ka waa xirfad kor u qaadaysa qiimaha suuqa shaqada aadna ka samayn karto dakhli. Waxaan ku diyaarinay koorso aad ku baran doontid qaabka muuqaalada loo hagaajiyo anagoo isticmaalna mid ka mid ah software-da loogu isticmaalka badan yahay CapCut-ka, Fishinkiisa PC-ga ama laptop-ka. Koorsadan waxaad ku baran doontaa aasaasiyaadka video editing-ka, sida muuqaalada loo jarjaro, sida loo adeegsado transitions, sound effects, animations, keyframeska iyo dhammaan sida loo edit gareeyo video step by step. Waxaan ku damaanad qaadaynaa haddii aad koorsadan qaadato inaad awood u yeelan doontid inaad samayso muuqaallo soo jiidasho leh oo professional ah. Hadda isdiiwaangeli wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir WhatsApp-ka. Waxaad kaloo saxdaa kalarka muuqaalka, adeegsana sawiro, videos, qoraallo iyo memes ku habboon muuqaalkaaga. Waxaad kaloo ku daraysaa techniques ama farsamooyin aad u heersareeya. Intaas haddii aad samayso, waxaan ku ballan qaadayaa muuqaalka inuu noqdo mid guuleysta oo professional ah, dadkana wada qanciya. Qofka barta xirfadda video editing-ka wuxuu ka shaqayn karaa shaqooyin badan, waxaana ka mid ah content creator, inaad noqoto qof muuqaalada sameeya, hadday ahaan lahayd muuqaalada YouTube-ka ama Facebook-gaba. Waxaa kaloo qaban karaa qaab freelancer ah in dadka muuqaalada ugu hagaajiyo sida youtuberada waaweyn iyo telefishinada. Wuxuu kaloo ka shaqayn karaa inuu sameeyo muuqaalada xayeysiiska ah. Shaqo walba oo la xiriirta muuqaal samayn ayuu awood u leeyahay inuu qabto qofka yaqaana xirfadda video editing-ka. Intaan ayuu ku egyahay muuqaalkii aan kaga hadlaynay xirfadda video editing-ka. Haddaan u cusub tahay nagu soo biir oo subscribe dheh